Mike wuxuu qorsheeyay inuu ka qayb galo ciyaar nolol iyo geeri ah. Haddii marmarku ku dhaco godka cas ee hoose, wuxuu ku guulaysan lahaa abaalmarin dhan 1.3 bilyan, laakiin haddii uu ku guuldareysto, wuxuu noqon lahaa adoon u shaqeeya abaabulayaasha ciyaarta. Anna waxay ahayd caawiyaha gudaha, waxayna bixin jirtay cabitaano lagu daray bir ku dheg magnets. Shaqada Tony waxay ahayd inuu magnetska ku jira dhalooyinka uu adeegsado si uu marmarka ugu riixo godka cas. Si kastaba ha ahaatee, qorshihii wuu fashilmay, marmarkuna waxay ku siibteen godka madow. Tony wuu xakameyn waayey shucuurtiisa, wuxuuna si kama ah uga dhacay madal sare. Dhalo cabitaan ahna waxay sidoo kale ku dhacday barkada abaalmarinta. Abaabulayaashu si degdeg ah ayay u ogaadeen wax aan caadi ahayn, laakiin markii ay qaadeen dhaladii ma aysan soo jiidan wax marmar ah. Markaas ayay ogaadeen in si looga hortago khiyaano, abaabulayaashu ay bedeli jireen walxaha marmarka maalin kasta oo kale. Maanta marmarku waxay ka samaysnaayeen naxaas, taasna waxay ahayd fikradda Anna. Lacag darteed waxay sirta u siisay qorshaha Mike, balse abaabulayaashu way ka faa'iidaysteen oo ugu dambeyn way eryeen. Mike iyo Tony way cafiyeen, balse waxay u ogolaadeen oo keliya inay wax kariso oo nadiifiso, iyagoo ka mamnuucay inay wax badan ka ogaato qorshayaasha muhiimka ah. Maalmo kadib, Mike wuxuu ku soo laabtay goobta ciyaarta. Markan si dhaqso ah ayuu u gaaray wareegga ugu dambeeya. Tani waxay jahawareerisay shaqaalaha maadaama ay maalintaas diyaariyeen heer aad u adag. Maxaa marmarku si fudud ugu gudbayay? Isla markaas sarkaal sare ayaa yimid, wuxuuna ku eedeeyay Mike khiyaano. Waxaa soo baxday in Anna mar kale ay khiyaantay. Waxay qalab dhegaysi bug ah ku rakibtay dambiil ubax ah, taas oo u suurtagelisay abaabulayaasha inay maqlaan qorshaha. Waxay iska dhigeen shirkad rarid ah, waxayna qorsheeyeen inay marmarka ku bedelaan kuwa yaryar. Mar kale Mike waa la khiyaameeyey, wuxuuna ku sigtay inuu jabiyo niyad ahaan, laakiin markii shaqaaluhu keeneen caaryada molds si loo barbardhigo cabirka marmarka, wax qalad ah lagama helin. Sarkaalka sare isla markiiba ayuu xafiiska ugu laabtay, wuxuu ka soo bixiyey miisaan qiyaas, ruler, qaanada, wuxuuna sameeyey isbarbardhig. Markaas ayay caddaaday in aan marmarka la bedelin, balse la bedelay miisaan qiyaaska lagu cabiri jiray.